sheekha waxaan weydiinayaa nin faqiir ah naag ma guursan karaa? mid ogol hadduu helo maxaa diiday? dumarow caydh ha guursanina, faqiirna ha guursanina. qaanuun in laga dhigo ama sidaa loo itlaaqo sax ma aha. alimaamu albukhaari calayh raxmatullah wuxuu saxiixiisa ku baabeeyey baabun fii taswiiji almucsir. baabu taswiiji almucsir. ninka caydhaa uu guurintiisa ayuu bukhaari baab ka dhigay. markaasuu wuxuu keenay aayadda fii suurati nuur ku jirta. alla yidhi tabaaraka wa tacaala waankixu alayaama minkum waالصaalixiina min cibaadikum in yakunuu fuqaraa'a yugnihim allahu min fadlih. hadday fuqara yihiin ilaahay baa fadligiisa ka deeqaya u guuriya. aayaddaasuu keenay imaam albukhaari calayh raxmatullah. waxaa kaloo uu keenay xadiidka caanka ku ah xadiidulwaahiba, haweenaydii nebiga isu soo hibaysay sal alla alay wasalam. kadibna markuu guur bay ka rabtaa nebiga inuu guursado. kadibna nebigu waa fiiriyey sal alla alay waslm, kor buu u fiiriyey, wuu isaga aamusay, way iska taagnayd. nebiguna waa fadhiyey. xoogaa markay ka soo wareegtay nin saxaabada ka mid ayay rasuulka ilaahay ow tan aniga ii guuri, haddaada dan ka lahayn aniga iigu dar. nebigu wuxuu ku yidhi sal alla alay waslam, maxaad haysaa? maxaa gabadha meher looga dhigaayood haysaa? wuxuu ku yidhi qaydka aan qabo, marada aan hoos ku qabo, xoolo taasaan ka naxaa. wuxuu ku yidhi maradu idinma qaybsanto ee maxaa kale? wuxuu yidhi xumaayo. rasuulku wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam, kac tago bal kaatun bir ah soo raadi. kaatun bir ah ma heli karuu yidhi. wuxuu ku yidhi qur-aanka maxaad ka xifdisan tahay? suura hebla, suura hebla, suura hebla. kor ma ka haysaa? haa. wuxuu nebigu yidhi sal alla alay wasalam, idhab faqad ankaxtukahaa bima macaka min alqur'aan aw zawajtukahaa aw mallaktukahaa. waxaan kuugu guuriyey wixii qur-aanka aad ka taqaano inaad bartee, kac tag buu la tagu rasuulku sal alla alay wasalam. marka waa nin xataa wax kale iska dhaaf, qaydka uu qabo waxaan ahayn ma hayo, kaatumbira ma soo heli karo. haddana nebigu waa u guuriyey sal alla alay wasalam, soo ma? marka xadiiskaana waa keenay, aayaddana wuu keenay imaam albukhaari calayh raxmatullah. khilaafna kuma jiro culimmada dhexooda inuu guursan karo. laakiin haddii uu helo waaye gabadh sidaa ku oggolaata, weligeeduna sidaa kula oggol yahay, inuu guursan karo khilaafu kuma jiraba, nusuustaa tilmaamaysa. waxaase u fiican in hadduusan heli karayn wuxuu ku guursado, sida fiicani waa inuu iska dhowrsado inta ilaahay uu ka siinayo wuxuu ku guursado. aayadda kalea tilmaamaysa, waliyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadlihi. kuwa aan heli karayn waxay ku guursadaan inta ilaahay uu ka deeqayo ha is-ilaaliyeena, ha isdhowreen buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala. waxaa kaloo tilmaamaya xadiidkii cabdillahi bn mascuud fi saxiixayn, yaa macshara ashabaab man istataaca minkum albaa'ata falyatazawaj. dhallinyaroy midkiinnii awood leh oo kari kara ha guursado. nebigu wuxuuhi fain lam yastatic, hadduusan kari karin facalayhi bisawm, soonka markaa ha la asugo, fainnahu lahu wijaah. marka sida ruuxa u fiican inuusan iscuslaynin hadduusan awoodi karin guurka, sidaasi waa sida u fiican. laakiin hadduu guur damco cid ku oggolaatana helo, guurku waa sax, wax diidayana ma jiro sharcan. waxaa kala duwan marka in la yidhaahdo gabadha la guursanaya iyo weligeedu ninka ma ugu diidi karaan guurka, waa faqiir, wax ma haysto, ma ugu diidi karaan? jawaabtu waa haa. waxaa kaloo iyadana masale ah, haddii adiga lagula tashado oo gabadh la guursanayo ama weligeedu kaala tashato, ninkan gabadha ma u guuriyaa, maxaad ku tala bixin lahayd? waad ku cillayn kartaa markaa inuu faqiir yahay.
وإيضاً وحا تلماما يا حديث كي صحيحين كويمد من حديث فاطمة بنت قيس نبي جاي أوتيمت حيكون الرسول كلا لوان نبا يصادونه أبو جهم من الليلة إيه الليلة هذو معاوية لوذا كان قرصدا النبي وحكور صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه أبو جهم يا قرصني معايا نكاس دمرك قراعة فضراب للنساء معاوية قرصني نو فالصعلوك لا مال له النبي صلى الله عليه وسلم معاوية وحيد أو أحبك النحين إساقنا قرصني أنكحي أسامة بالنبي صلى الله عليه وسلم لو ضوضب إسكندا يا أسامة قرصو مركب معاوية قرصني النبي محو قوال أقول لأنه وحيد برسول صلى الله عليه وسلم هذه مركب لقولات تشهدوا ورنيك وحيده قوال ما هو قورنا وحيده ما هيستده سو ما ذكر لكن قاعدة قود قانون شرعي إن لقد قوا خلط ولا يلاهدوا دمروا عيدها قرصنينا فقيرنا قرصنينا قانون إن لقد قوا أما سيد الله إطلاق صح معها نصوصتا هي دقنك مسلمين ترى يكسر جدا دناعي مسألة الاعتبار كلا ده هاي لكن قوركنا وأصحيا ضدك فقرادنا ويقرصن كران هدي يجو إسكو أقلادا أنت النبضن با إنكم فقراء بنقرصنا صوما أنت يجو تاجرين وحقرصدا ويري مسلمين تنزاهم بيسوء هاي مسألة ده مركز سيداس وي والله أعلم dugsiga barashada quraanka kariimka ee Daarul Cilmi Islamic Online waxa uu quraanka kariimka ku barayaa qaab online ah adiga oo jooga gurigaaga amba goobtaada shaqo meel kasta oo adduunida aad kaga nooshahay malaha da iyo jinsi u gaar ah oo rag iyo dumarba ay dhigan karaan dugsiga waxyaabaha aad ka baran karto waxa kamid ah xifdiga quraanka kariimka ah higaada carabiga iyo waliba tafsiirka quraanka kariimka waxa intaasi ku dheer oo dugsiga aad ka helaysaa barashada axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo adkaarta casharada waxa lagu qaadan doonaa aaladaha Skype iyo Zoom balankeenu waa inaad iska diiwaan geliso oo aad ka mid noqoto ardayda Daarul Cilmi Islamic Online wixii faahfaahin ah kala soo xidhiidh lambarada shaashada kaaga muuqda